kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aanu ku soo qaadi doono barnaamijkeenana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh oo wajahaya jahwareer culus oo la xiriira hubkii cabud waaqi iyo dawladda federaalka oo fadeexad dhaxda ka taagan haddaba waxay idin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo la qaab uu caalamka ugu qanciyo in hubkii cabud waaq dadka ku bileelaqeysteen ee Itoobiya dalka soo gelisay war-saxaafadeedkii ay galabnimadii maanta dawladda soo saartay oo caalamku uu ku qanci waayay kadib markii safaaradaha dawladaha caalamka ee fadhigoodu yahay xalana loo kala diray warqadani waxaan idiin soo gudbin doonaa falcelinta dawladda ku soo noqotay iyo kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo yaaban haddaba waxaad la wadaagi doonaa wax walba oo kaga baahan tahay falcelintii ka dhalatay warqadii ay galabta soo saartay dawladda ee ay dawladda Itoobiya ugu eedeysay in hubkii la soo geliyay magaalada cabud waaq ay ahayd mid iyadu ay ka dambeysay waxna ay ka ogeed سلامة وحبان إذا لو ذاك دونه وحكم النقود دونه حمزة وأريمة حساسية كله هذا اللي جيس هذلك غدر طبعا محوية هاي وحباها ورئيس الوزراء حمزة كله هذا رئيس الوزراء هذلك غدر يكون سعادة بدن قاطع وكرة عقصري كم تحته هذا غدر معلومات يعني إذا كجه هنا كلن كان وعلى مسؤول لقى كين يدولد أو شكل لقى غبي الشباب وهذا اللي جري سو بنان كو إيمان برامج كينا ينكسو كتبين دونه معلومات جود وكو هذا سفر كحمزة غدر وزير كترنا جبلان ولوغر حيد دولت كمجالات كسمايو qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan asaateynta inuu guda gelin dhamaantiin waxaad ku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan idinka muuqaalka like saarayo sidoo kale haddii aad tahay saaxiib nagu cusub waxaanu ka dalbanaynaa inaad subscribe saarato barteena YouTube-ka oo aad rukumato muuqaalada iyo warbixinada xasaasiga ee ku soo baahino halkan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wajahaya jahwareer culus oo la xiriira fadeexadda hubka dadka shacabka gacanta u galay ee magaalada cabud waaq kadib markii maanta dawladdiisu ay soo saartay war-saxaafadeed aad loola yaabay taasi oo dawladda federaalka Soomaaliya eedan yaab lagu jeedinayso dawladda Itoobiya aynu ku eedeynayso in hubkan dawladda Itoobiya si kas ah ay u soo gelisay dalka war-saxaafadeedka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay maanta oo hordhiciisu aad ku daawateen wararkeena hore ayaa sida aad daawateenba waxa uu daarnaa eedeemo loo jeedinayo dawladda Itoobiya laguna eedeynayo inay qalqalgelinta amniga Soomaaliya ay ka shaqeynayso war-saxaafadeedkaas oo markii uu soo baxay kadib dadku ay kaga falceliyeen ayaa dadka qaar ay ku tilmaameen inuu yahay mid yaab iyo makaag leh xilli kale hore looga in hubka degmada cabud waaq ee shacabku ay ku furteen uu ahaa mid ay wateen koox ganacsataha oo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayna ka mid yihiin xildhibaan Saabir Shuuriye oo ka tirsan kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo Liibaan Shuluq kaasi oo isaguna ah nin ganacsadaha oo galmudug ka soo jeedo hase ahaatee warka dawladda ee galabta ka soo baxay laguna eedeeyay dawladda Itoobiya in hubkan candimilayaasha ku rarnaa ee gacanta u galay shacabka inuu ahaa mid Itoobiya kaga gon lahayd in xasilooni darro ay ka abuurto gudaha Soomaaliya isla markaasina dawladdu ay cuskatay xiriirka xun ee u dhaxeeyay Itoobiya iyo Soomaaliya ayay warqadaasi u dirtay dawladaha caalamka dawlado badan ayaa la sheegay in ay falcelin ay ka bixiyeen iyaga oo qaarkood ku qanci waayay warqada kaga timaaday fila Soomaaliya oo ay ku sheegayso in Itoobiya ay hubka Soomaaliya soo gelisay dawladda Soomaaliya aanay waxba ka ogeyn arrinkan hase ahaatee su'aalo badan ayay ka keeneen qaar ka mid ah safaaradihii warqadahan loo diray iyada oo dawladda Soomaaliya laga dalbaday inay keento war qeexan oo cadeynaya in Itoobiya si kasta hubkaas ay ku soo gelisay gudaha Soomaaliya iyadoo kaga gon leh qallaaska ka abuuridda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kooxdiisa ayaa la sheegay in shiro gooni ah ay caawa yeelanayaan la taliyaha amniga qaranka iyo xubno kale oo kamid ah xubnaha sida weyn ugu dhow madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka shuureynayo sida caalamka loo siin lahaa fasiraad dhameystiran oo ka baaxad weyn ee galabnimadii maanta ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ee lagu wargeliyay safaaradaha dawladaha caalamka ee fadhigoodu yahay xirada xalane arrimahan ayaa muujinaya sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jahwareersan yahay ceebta dawladdiisu ay kala kulantay hubkii koox ganacsataa oo xulafo la ah kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee isku raranka ay ku soo galiyeen gudaha Soomaaliya si aanan indha ka qabsasho lahayn kadibna ay dadkii shacabka ah ay boobeen haddaba daawada sida iyada u aragtaa jahwareerka ay dawladda madaxweyne xasan sheekh wajahayso isla markaasina la xidhiidha hubka sharci darrada ah ee la soo geliyay gudaha Soomaaliya geeska kale tan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa kulan shaki badan dhaliyay wax uu la qaatay dhigiisa dalka Qatar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre oo shalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa maanta bilaabay kulamo xasaasi ah oo la yeelanayo madaxda sare ee dalkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Qatar ra'iisul wasaare Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani oo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah labada ra'iisul wasaare ayaa kulankooda diiradda ku saaray xoojinta xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo sidii loo adkeyn lahaa iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga waxbarashada iyo horumarinta arrimaha bulshada iyada oo la falanqeeyay dhammaan qodobadani
asaatee safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aaday iyadoo oo bulshada Soomaaliyeed ay guux xooggan ay ka qabeen warar maalmihii ugu dambeeyay soo baxay kuwa uu la xiriirin dowladda Qatar ay ka qayb qaadanayso wadahadalsiinta Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda argagixisada ee shabaab. kulankan ayaa la sheegayaa in uu yahay mid gaar ah oo albaabadu xiran yahay waxaana kaliya goobjoog ahaa diblomaasiyiin oo labada dhinac ka kala socday oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku weeliyay dhinaciisa halka dhinaca kale diblomaasiyiin iyo xubno sirdoon oo dowladda Qatar ah ay kulankaasi goobjoog ay ka hayeen. lama oga haddii ay jiraan wakiilo ka socda maleeshiyaadka argagixisada ee shabaab ee goobjoog ka ahaa kulankaas, inkastoo dowladda Qatar ay sheegtay inay wada hadashiinayso Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda ay dagaalka kula jirto ee shabaab. kooxda shabaab ayaa in muddo dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaal kula jirta waxaana dowladda Soomaaliya mar hore ay sheegtay inay ka go'an tahay ciribtirka kooxdani hase yeeshee mar qura ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sheegay hadal ay si weyn ay kaga caruudeen dad badan isla markaasina la xiriiriyay in dowladdu ay wada hadal la gelayso kooxda xilli kooxdu ay qabto dhiigga dhalinyaro badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isla markaasina rajo iyo dadiilo wanaagsan ka lahaa qaranka Soomaaliya inay ka xureeyaan kooxaha argagixisada ah. asaatee kulankan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ama kulamadan uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka bilaabay Qatar ayaa guuxa shakiga ku sii abuuraya dadka shacabka ah ee aanan jeclaysan fariinta la xidhiidhay in dowladdu ay wada hadal la gasho kooxda shabaab. dhinaca kale tan wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in duleedka magaaladaasi lagu qarxiyay wasiir ka tirsan Jubbaland. wararka naga soo gaaray gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in goordhow kulanyo uu la socday wasiirka arrimaha diinta maamulka Jubbaland Abu Yusuf qarax miina ah lagu eegtay duleedka magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. ila wareed xilkaas ayaa inoo sheegay in wasiir Abu Yusuf uu soo gaaray dhaawac kadib markii ay miino ay haleeshay mid ka mid ah kolonyadii uu la socday waxaana loo qaaday gudaha magaalada Kismaayo oo haatan lagu la tacaalayo xaaladiisa caafimaad. wasiirka ayaa xilliga la qarxinayay la socday ciidamo gurmad ah oo ku sii jeeday deegaanka Buulaxaaji oo ay saaka weerareen xubno ka tirsan maleeshiyadka kooxda shabaab. wararka ayaa intaas ku darayay in qaraxan kadib ay howlgalay sameeyeen ciidamada ammaanka balse ma jirto cid ay soo qabteen ama ay u soo qabteen falkaasi. xaaladda gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta mid kacsan waxaana deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ay ku dagaalamay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo gacan ka helaya kuwa Jubbaland iyo maleeshiyaadka shabaab waxaana lagu jabiyay maleeshiyaadka shabaab weerarka soo qaaday iyagoo laga dilay xubno ka badan 100 xubnood isla markaasina la soo bandhigay meedadka xubnahaas iyo hub tiro badan oo ay ka furteen ciidamada qaranka. geesa kale al-shabaab ayaa arin aysan filaynin waxay kala kulmeen Buulaxaaji. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa war qoraal uu soo saaray waxa uu kaga hadlay dagaaladii culuslaa ee maanta lagu jabiyay kooxda shabaab kuwaasi oo ka dhacay deegaanka Buulaxaaji iyo waliba deegaanka Harboole la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. jaamac ayaa waxa uu sheegay in shabaabka weerarka soo qaaday ay la kulmeen waxaysan filaynin isla markaasina loo dhigay cashir la miilaawana kadib markii isku dayeen inay weerar ku qaadaan fariisimo hore loogu xoreeyay oo ku yaalo deegaanka Buulaxaaji sidoo kale Baarsanguuni Harboole dhammaan deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. wasiirku waxa uu mahadceliyay ciidamada qaranka iyo kuwa dowladda Jubbaland ee jilbaha u dhigtay maleeshiyaadka weerarka soo qaaday balse isla ayagii khasaare baaxad leh gaarsiiyay. al-shabaab ayaa looga dilay dagaalkan xubnihii ugu badnaa sida hordhacaba aad ku daawateen waxaana looga soo furtay hub tiro badan oo ay wateen xubnaha la laayay. wasiirku waxa uu sheegay in shabaab cashirkii maanta lagu dhigay halkaasi uu ahaa mid aanan hore loo arag. wararkeena caawana waa naga